ورحمة الله وبركاته لمان صاحبة الصوماليات ملك السؤال جوكتال يسكى الصعد والداويسان جمعة المبارك موضوع عن وحوكو سابسي عسى محمد على السوء دولار رجال أليس أحكو قاضية بنتولا خرينا وكو خساري دولار لذا وكو قاضي أما الدولار لذا وكو قاضي ديغان لذا باش دار خساري كسو قاري ونسول تاقي دونا انتو لن يهي سيدو كلا شقال كهدا اوضو ايا نسول تاقي دونا هسي يشي موقال كاسو رلعا وحوها حفلة حالي وسميستي مدحا نفران او اي كو شاقين قدوميها بارلمانك فدرالك الصومالي قالها نقولها شعبك اني udorteen mase way u magacaabeen baan dhaha xafladu samaystay ala kulli xaal khudbadaas ay ka jeediyeen bal aan ku hormaro khudbada xasan sheekh way noo soo socotaa iyaduna aad u kooban bal ninka la yiraahdo Xamza aan ku hormaro Xamza Cabdi Barre wuxuu dhiirigeliyay in mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan waxa weeye xildhibaanadu ay furtaan TikTok waxa aad loola yaabo weeyaan adduunyada wadamada ku yaala ee 200 gaaraya hay-adahooda dawladda 95% waa laga mamnuucay dadka u shaqeeya in ay isticmaalaan TikTok sababtoo ah TikTok waa meel aad iyo aad u anshax daran aan ku haboonin runtii in si joogto ah u isticmaalo qofka mas'uulka ah oo qaran dhan hogaaminaya waxa weeye marka meeshii uu dadka uga digi lahaa isagoo og sida dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarkii uu fasaadeen meeshan ayuu isagu dhiirigeliyay nin aan TikTok furan garan maayo sida uu ula shaqaysan karo muxuu haytay madaxana furan wax la yaab la weeyaan war TikTok waa meesha Soomaalida fashilisay Soomaalida waxaan aragnay in badan iyadoo lagu dacaayadeynayo inay yihiin dad low IQ ah oo maskaxdoodu aad u hooseyso laakiin TikTok marka aad fiirisid runtii waxyaabaha la ka sheegay waxba ka jira waxa arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo qurux badan oo waxa weeye TikTok intay soo gashay iyadoo isqurxaysa umadaha kale marka aad fiirisid waxa weeye waxbay ku iibsadaan meesha waxyaabo mufiid ay ku hayaan xataa Soomaalidu kama ganacsato waxa weeye TikTok shop baa jira dadka ajnabiga markaad gashid oo yani aad ba aragtid waxa weeye muuqaalkooda waxba uu ka gadaya wuxuu ku leeyahay waxa way fiican yihiin linkiga hoose taawalkaas gal halkaas ka iibso waxba laga faa'iido laakiin anagu futoon baan meesha u soo safrinay taas inuu dhiirigeliyo lama baahnay waxay ahayd bil cagsigeeda inuu yiraahdo Soomaalidu ha iska yareyso isticmaalka aalada TikTok laakiin niman TikTokera gudoomiye baarlamaan u doortay horta ma laga filan karaa in ay fawaaxishta iyo foolxumada ka dhexayta TikTok ka hadlana maday kiciya waame waxa weeye marka dhahane ewl bacala badan ma lahayn intaas aynu uga gudubno xasan bin cali soo ayaa meesha ka hadlay oo markaasina doonaya inuu masaajeeyo Puntland oo uu ku qaadayo dagaal rogaan celis ah bal xasan 35 sekin aynu daawan المكسو عد عن الله نهاي أما عداوة عن وهاي مجرته مسؤولين تدلكان لو دورتي حلكو ذا صاران نهاي عد عن عداوة لنهاي أو عن لدرسان نهاي أو عن ديغان أهان أولا درسان نهاي أو عن قبيل أهان أولا درسان نهاي أو عن قف أهان أولا درسان نهاي مجرته طبعا ضد بدن وسياسة دلك أن كوكال أركتي دوان نهاي oo sidaan aroon aan isleenahay way jiraan laakiin waxa rabaa dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinteedaba waayay xasan maxamuud wuxuu sheegay in aysan jirin beel Soomaaliyeed qof Soomaaliyeed ama deegaan Soomaaliyeed oo uu coleeyahay dabcan waa beentii waxaan haynaa xog sheegaysa in xasan maxamuud cali sow maantaba uu u socdo galmudugna uu tagayo ciidamo maleeshiyaad ah oo 3,000 gaaraya una badan beesha hawiye in uu tababar soo xiro ciidamadaas ciidamo fara ku tirsa oo beesha taariikh ka soo jeeda ayaa dabcan ku jira gaar ahaan reer Puntland xasanna wuxuu doonay inuu tababar ku soo xiro isla markaana uu yiraahdo dagaal rogaan celisa ku qaada Puntland xasan waa maqooste Puntland way fahamtay oo waxa weeye already warbay ka soo saartay waxaana sheegtay in ay la socotay ogtahay dhamaanada xasan maxamuud in uu doonayo markale inuu colaad ka horiyo Puntland waxaan leeyahay aad mahadsantihiin sida aad u fahamteen ninkaas dhagar qabaha ahna waan idinka mahad celinaa iska celiya oo waxa weeye markale afka ciidaha loo daro xasan meelo badan buu ku soo jabay laakiin waxaad moodaa inuu ku sifaysan yahay wixii la oran jiray doqoni dibir kama daasho
qofka doqonka ah haddii laga adkaado xataa ma tanaasulo oo ma qirto in laga adkaaday. ninkan waxa weeye ilaa 4 duulaan oo uu u qorsheeyay deegaanada beesha daarood intaba uu ku jabay. aynu ka soo bilowno hub aad iyo aad u tiro badan oo laga yaabo in lagu dumin lahaa Puntland ayaa waxaa looga qabsaday gobolka galguduud gaar ahaan magaalada Cabudwaaq. hubkaas waxaa lagu qiyaasay 12 milyan oo dollar. gacanta waxaa ku dhigtay beesha Mariixan. waayahay Raas Kamboni dagaalkii uu ku galay isagana ciidamadii uu diray xuduudda lagu dhaafiyay ilaa 10 milyan oo dollar buu ku kharash gareeyay baa la yiri. 12 milyan waxaad ku dartaa muxuu ahaa 10 milyan oo dollar 22 milyan. Puntland weerarkii uu ku qaaday isagana lagu soo jebiyay ilaa 8 milyan oo dollar baa looga furtay oo raka qaatay. waa imis 12 10 ilaa 8 milyan oo dollar soo ma. Cabdirashiid Janan oo uu doonayay isagana inuu mar kale dagaal rogaaciisa sida hadda kan gaalkacyo uu rabo inuu ka rido sidaas oo kale dagaal rogaaciisa inuu ku qaado uu rabay 4 milyan buu laba wiil ka horsiiyay oo wuxuu yiri qaado lacagtan meeshii dab ka shid oo waxa weeye ugu yaraan gobolka Gudo iyo Axmedoba qoorta isu gali. Cabdirashiid Janan uu fikiray 4 milyan uu qaatay waxa laala iyo wixii ciidan meesha joogay ayuu dhaqaaliyo qaybiyay mushaarkoodii siiyay wuxuuna yiri waxaan ahay nin ka tirsan Jubbaland. waxa weeye marka horta duulaanadii daarad uu ku qaaday Xasan Maxamuud sidaas uu khasaaray dhaqaalihii ugu fara badnaana meesha waa looga furtay. laakiin ninku ma yahay nin caqli leh waa Xasan Maquuste Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistay ayaa ka digi jiray waxa la yiraahdo maquustanimada. wuxuu dhihi jiray 30 sano xabad ku soo jiray jabhad baan ahaa aniga maquusta ahaan jiray maquustanimada hal la joojiyo. waxaan leeyahay Xasan caqli hadad leedahay meesha waad ku xoolo beeshay dooradna ku faham xoolo dambe ha iska khasaarin wiilal dambana waxa weeye dagaal xigilin hadda caqli leed wax tarayso weey. haddaadan caqli lahayna insha Allah taala 3,000 ee wiil ee u badan beesha hawiye ee aad Puntland doonayso inaad ku dumiso meesha ku dambeeyaan ayaynu arki doonaa. waxaan leeyahay la iska celiyo odagaas waa oda sabab ah hawiye mar hore u afduubtay laakiin beesha daarad hadda wixii ka horeeyay Xasan iyaga ka adkaanay duulaan kasto uu qorsheeyo waxa uu ku soo jibinayeen. waxaan rajaynayaa isku dagaan oo kiishan ahna insha Allah taala Xasan uu ku soo jibin doono ummadda Soomaaliyeedna ay markaasi ka guuleysan doonto. ugu dambeyn reer Muqdisho waxa arkay reer Waaberi oo aad u qaylinaya oo calaalaya waxaan leeyahay reer Waaberiyow ninku waxa weeye carshaan buu ka duminayaa guri weyn Waaberi ayuu ka dhistay. nin dilay nin baa loo dilaa waa takanadiisa soo lama oran jirin. guriga dheer Xasan Maxamuud Cali soo ku qamaama kaas dhulka la sima ka tarabil tan habeen soo qaata xataa juku siiya oo iska dumi doonaa bal guryo la iska dumiyo xarunkeeda harki haddii kale meesha cala madaxweynaha dacwoonina madaxweynaha ninka boobay kan idin dhacaya inaad dacwootaan caqli ma aha. waxaa la ninka la iska celiyo reer Muqdisho dhamaantiin ogaada haddaad degmado maalin ku fiirsataan dhibaatada Xasan Maxamuud ugu dambeyn Xasan meesha uu socdo waxay tahay guryaha kulligii inuu ka wada bixiyo. waxaa la iska celiyo ummadda kale si isaga celisan Xasan ma la iska saar. barnaamijka jimcaha intaas ku soo go'goynaya hada bilaa tawfiiq. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.